waxaa maalintii labaad magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya gaar ahaan garoonka kubadda cagta injineer riso agis banaadir stadium ka soconaysa ciyaarta u dhexeysa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir. maalintii shalay ayaa xariga waxaa ka jaray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish, wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda soomaaliya xamse saciid xamse iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani saciid carab, kaas oo maalintii shalay lagu bilaabay maamulka galmudug iyo gobolka banaadir. waxaana ciyaartaasi u ahayd mid xiiso badan ee ay ku soo idlaatay 2-2 kadib markii ay ismari waayeen gobolka banaadir iyo maamulka galmudug oo in muddo halkaasi isku haystay. ciyaartaas oo ahayd ciyaar ka duwan kii hore ayaa sidoo kale la sheegay inay ahayd taageerayaasha ay u muujinayeen xamaasadna ay u lahayd. maanta ayaa sidoo kale waxaa ciyaar ka duwantii shalay ku dhex martay maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland oo ah maamulo diris ah, waxaana la sheegay in ciyaartaasi ahayd mid taariikhi ah islamarkaana labada ciyaartooyba ay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan islamarkaana guusha ay ku raacday maamulka koonfur galbeed soomaaliya. koonfur galbeed ayaa la xaqiijiyay inay afka ciid u dartay jubbaland, waxaana guusha ay raacday maamulka koonfur galbeed oo la timid hal gool halka jubbaland ay la timid eber. guushii maanta ayaa taageerayaal fara badan oo ka tirsan kuwa koonfur galbeed waxa ay ku damaashaadayeen garoonka injineer riso ee magaalada muqdisho, kuwaasoo sheegay in libaaxyada koonfur galbeed ay isku diyaarinayaan sidii guusha guud ahaanba ay gacanta ay ku dhigi lahayeen. ciyaartan oo shalay ahayd mid lagu soo bilaabay ama gruupka e oo ay ku wada jireen maamulada galmudug iyo gobolka banaadir ayaa maanta oo ahayd gruupka labaad ama b ee si weyn ay fooda isu dareen maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland, taasna ugu dambeyn guusha ay ku raacday koonfur galbeed soomaaliya.